size-ka hadaba size-ka ayaan imika kala doonaa. Size-ka yar wuxuu ahaa number, imika waa size-ka hadaba macrodontia. Macrodontia waxa weeyaan waa iligii oo sidii normalka ah ka weyn. marka mujeedin waa baalka aad ku weyn weeyaan. Okay, baalka aad ku weyn labada ilkiiba aad u weynaaday, ilkiiba maxay aad u weynaaday, halkii normalkii maxaa lagu talagalay maaha ilkii maxay aad u weynaaday. maxaa leenahay macrodontia. kale waa garanaysa macro, kelmadda macro hadaan maqashay micro waa wax yar soo maaha, macrona waa wax weyn, markuu saas ka weynaaday. waa teeth larger than average which exceeds normal range of variation. waa iligiyo maxay aad u weyn, kaas oo maxay sidii normalkii size-kii normalkii lagu talagalay ayuu dhaafay. badankana waxa ugu caansan ee qofka ilkuhu ay weynaadaan waa maxillary central incisor. waxaa ku xiga mandibular incisor-ka, waxaa kale kusii xiga mandibular second premolar. okay, sida sidoo naga muuqata waxa weeyaan waa maxillary central incisor oo size-koogii aad uga weynaaday. Microdontia ama microdontia kan waxa weeyaan haddaan micro means micro waa small, micro kulli waa dhigata soo maaha, microorganism, microbiology. micro means waa very small, micro waa small. haddaba waa microdontia waxa weeyaan waa teeth smaller than normal. waa iligii muujid waa kan iligii waa ka normalkii waa kan, laakiin normalkii ka yaraaday waxa yar yariiska dadka. okay, waxa yar yariiska weeyaan iligiyo kan buu ka yaraaday, muujida kan waa ilig yariis. okay, marka wuxuu ekaan karaa foonkiisa caadigu yeelan karaa, marmarna wuxuu yeelan karaa conical sida sawirka naga muuqata, conical or big shaped ayuu noqonayaa. conical sida sawirka naga muuqata, marmarna foonkiisii caadigu iska yeelanayaayo size-ku baa aad u yaraanaya. badankana ilkaha lagu arka waxa weeyaan waa maxillary lateral incisor-ka iyo waana kagu caansan badanka ya, maxillary lateral incisor, sidoo kale molars. haddaba sidee loo daaweyn karaa? waxaad u gudbinaysaa qofka dentistiga. ninka dentistiga wuxuu sameynayaa inuu recontour ama oo reshape of teeth, marka isaga iligii shapekiisii uu soo celinaya oo shapekii oo qurxinaya, amba inuu ilig ka dulgeliyo amba inuu soo buuxiyo isagaa sameynaya.